ayaa 12 carruur ah ku khiyaameeyay inay galaan ceel duug ah oo qalalan. Wuxuu ka soo foorarsaday edifka ceelka wuxuuna yiri waa ciyaar uun carruuray ha baqanina. Isla markii ay carruurtii hoos u degeen wuxuu ku dul jiiday dhagax weyn oo culus isagoo gebi ahaanba ka xiray. Sanado kadib waxaa isla goobtii laga bilaabay dhismo saldhig tareen oo loo yaqaan Yoksu. Cidna ma ogeyn in carruur aan waxba galabsan ay ku xaniban yihiin ceelkaas qalalan gudihiisa. Shaqaalihii dhismaha waxay ceelkii oo dhan ka buuxiyeen shub iyo dhagxaan. Markii saldhigga la dhameeyay oo la furay waxyaabo la yaab leh ayaa bilaabmay inay dhacaan. Dad badan ayaa sheegay in markay tareenka sugayaan ay maqli jireen codad daciif ah oo carruur ooyeysa oo hoosta ka imaanaya. Saldhigga oo dhan waxaa lagu xiray kaamirooyin, ma jirin meel aan la arkayn. Habeenada ka mid ah shaqaale la yiraahdo Jack ayaa shaqada ku jiray markii uu arkay nin hoos ugu degaya biraha tareenka. Jack ayaa ku qayliyay ka deg biraha tareenka. Tareen baa imaanaya. Laakiin ninkii ma uusan dhaqaaqin, wuxuu iska istaagay isagoo u eg qof sixran. Jack wuu argagaxay wuuna u soo booday si uu u badbaadiyo. Si kadis ah wuxuu arkay gabar yar oo ag fadhida ninka. Jack wuxuu u sheegay inay iyaduna ka fogaato. Intaas uun buu yiri markii uu tareen xawaare ku socda soo muuqday. Wax yar kadib booliskii ayaa yimid oo bilaabay inay xaaladda maareeyaan. Laakiin gabadhii yarayd ee la yaabka lahayd weli halkaas ayay joogtay. Waxay ku dhuumanaysay gudcurka iyadoo qof walba daawanaysa. Indhaheedu waxay ku dhegsanayeen gees keliya. Connor ayaa si tartiib ah u weydiiyey magaca. Gabadhii ma aysan jawaabin, si aamusan ayay ugu dheegagtay iyadoo indhaheedu ay ka muuqato cabsi.